inaan ka hadlo mowduuc yar oo ku saabsan cudurka duumada. Cudurka duumada waa mid khatar ah, waxa uuna sababaa dhimasho. Waa sidaan ka wada warqabno hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay qiimeeyday sanadkii inay cudurkan inay u dhintaan dad ka badan 545,000 oo qof, uuna saameeyo ama ku dhaco 345 milyan oo qof caalamka oo dhan. cudurkan duumada waxaa sababa nooc ka mid ah kaneecada, nooca oo ah mid dhadiga. kaneecada dhadig sababta kaneecada waxay sababtaa parasite loo yaqaano protozoa. protozoa waa mid ka mid ah virus. halka waxaa ka dhasha 4 nooc oo kala ah parasite falciparum loo yaqaano PF, parasite malaria, malaria. salaanka wacdi waxa aan doonayaa halkaa inaan ka soo jeediyo mowduuc gaar ah kaasoo ugu talagalay in aan uga hadlo halkaan. mowduucaas aan halkaan uga hadlayaa waxa uu yahay mowduuc aad loogu baahan yahay, kaasoo aan u xushay in uu yahay mowduucaasi mid maanta loo baahan yahay. mowduucaas waxa uu ku saabsan yahay daryeelka caafimaad ee ay u baahan tahay hooyada uurka leh iyo weliba hooyada marka ay umulayso. barnaamijkayga haddii aan sii gudagalo, daryeelka dhalmada ka hor waa nooc ka mid ah daryeelka caafimaad ee ay u baahan yahay qof kasta. daryeelka dhalmada ka hor waa nooc ka mid ah daryeelka caafimaad ee ay u baahan tahay hooyada uurka leh. hadafkeeduna waa inay bixiyaan dhakhaatiirtu baaritaan joogto ah. ujeedada ugu weyn waa in la helaa dhammaadka hooyo caafimaad leh iyo weliba inay caafimaad qabaan. fikir ahaan daryeelkani waa inuu bilowdaa marka ay hooyada uurka yeelato oo uu sii socdaa ilaa muddada ay hooyada ka dhalayso. hooyada uurka leh mar walba waa inay la socotaa xaaladeeda caafimaad oo ay ku xirnaato isbitaalka. hooyada uurka leh mar walba waa inay qaadataa cunto isku dheelitiran si ay uga badbaado waxyaabaha dhibaatooyinka. hooyada uurka leh haddii aysan la socon caafimaadkeeda waxaa ku imaan kara dhibaatooyin badan sida aneemiyada amaba dhiig la'aanta sida waxaa u taqaanin iyo aneemiyada iyo weliba nafaqo darro. hooyada uurka leh mar walba waa inay ka taxadartaa nafsadeeda oo ay u dadaashaa si ay u badbaadaan iyada iyo caruurteeda. hooyada uurka leh sidoo kale waa inay ku dhashaa goob caafimaad amaba isbitaalka. hooyada uurka leh halisaha ku imaan kara hooyada uurka leh haddii aysan ku dhalin goob caafimaad. hooyada uurka leh haddii aysan markii ay umulayso aysan tegin goob caafimaad amaba aysan ku dhalin isbitaal waxaa ku imaan kara foosha oo ka dheeraata, dhiigbax, dhiigkar iyo weliba kalaamiso. salaan kadib waxaan soo jeedinayaa mowduuc yar ku saabsan shubanka. shubanku waa mid ka mid ah caqabadaha ugu badan ee caafimaad, wuxuuna sababaa khatar caafimaad, wuxuuna caan ku yahay cudurkan caafimaadka wuxuu sababaa halis ama khatar caafimaad, wuxuuna safka hore ugu jira cudurrada geerida soo dedejiya. adduunka oo dhan waxaa lagu qiyaasaa 2 milyan oo kiisaska cudurka ayaa ka dhaca sanad kasta. 1.9 milyan waa caruur ka yar 5 sano. cudurkan wuxuu caan ku yahay saxaro jilicsan oo biyo ah, taasoo qof ka timaada 3 jeer iyo in ka badan maalintii. cudurkan waxaa sababa xayawaan nool oo ilmo aragti ah sida bacteria, virus iyo parasites. calaamadaha cudurkan waxaa ka mid ah gaar ahaan markii fuuqbax jiro, xaraad fara badan, qofka indhihiisa oo godgala, maqaarka calooshiisa markii lasoo jeedo aana dib u laaban, miisaankiisa hoos u dhaca. sidoo kale daaweyntiisa cudurkan waxaa ka mid ah cudurkan faraha koowaad shubanka waa in la siiyaa bukaanka milanka fuuq celinta ee ORS haddii uu matagayo ama uusan afka wax ka qaadin karin. si degdeg ah ula tigso goob caafimaad. ogow 90% ORS waxay daaweysaa qofka shumayo oo aan ka ahayn bukaanada shubanka qatalista qaba. ka hortagga cudurkan waa in la cabo biyo nadiif ah iyo in laga fogaado biyaha tubada ee laga sameeyo jalaatada iyo cabitaanada. sidii hore la kugu sheegaba waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo mowduuc ku saabsan dhiigbaxa hooyada uurka leh.
barnaamijkan dhiigbaxa mawduucan hooyada uurka leh dhiigbaxa ku imaan karaa waxaan ku doortay markii aan arkay inay deegaankeena aan ku badan yihiin maamooyin badan oo aan la xiriirin xarumaha caafimaadka kuwaas oo ku silca xaafadaha iyo aad u dhiigbaxa markii ay uur leeyihiin barnaamijka mawduucayga haddii aan guda galo marar badan ayay noqotaa waxaan halis ahayn inuu yimaado dhiigbax kaas intii uur la leeyahay waa arrin dumar badan ku dhacda dhiigga hooyada ku imaan kara waxa uu noqon karaa mid khafiifa mid buni ama mid kafee ah iyo mid u eg dhiigga caadada dhiigga badanaa ka imaado hooyada dhiigga khafiifka iyo dhiigga buniga inta badan ma ahan wax khatara laakiin haddii aad isku aragtid adigoo uur leh aad isku aragtid dhiig waag dhiigga caadada ama ay la socdaan calaamado kale sida inay caloosha ku xanuunto in laga qabto farjiga ama se gumaarka waxaa muhiim ah inaad la xiriirtid dhakhtarka la xiriirtiin dhiigbaxan aan ku guda jirno waxaa sababa waxyaabo badan ayaa sababa waxaan rabaa inaan kasoo qaato xoogaha waxyaabaha sababa dhiigbaxan waxaa sababa isbedelada hormoonada waa ay sababaan galmada waa ay sababtaa sidoo kale waxaa sababa fashinka ayaa sababa sidoo kale dilanka ilmaha way sababaan sidoo kale waxaa sababa ilmaha ku abuurma binaanka ilmo galeenka sidoo kale waxaa sababi kara in ibidu ay dilaacdo sida way sababaysaa haddii aan sababihiis halkaas uga gudbo dhiigbaxa waxaan rabaa maxaa looga hortagi karaa dhiigbaxan adigu waxaa tahay kasoo qaad adigu waxaa tahay qof shakhsiya waxaa ku imaaday hooyo dhiigbaxaysa uma lihid khibrad caafimaad oo aad ku daaweyn kartid hooyadaas dhiigbaxaysa waxaana rabtaa inaad hooyadan badbaadisid oo xoogaa ay caawinaada aa siisid ma ahan hooyada markay ku imaanto inaad daawo walba siin kartid sidii ula dhaqmantid qof caadiya inay tahay waayo ayada umala dhaqmaysid qof caadiya sidiisoo kale waa laba naf ayadu qof kale ayaa ku jira waxaa la rabaa markay awalan hooyada ku imaato inaad kanool surto kanoolka markaad surto kadib waxaa la rabaa inaad ku xirto faleembo cusbaa wixii intaas ka dambeeya waxaa la rabaa inaad la xiriiriso xarumaha caafimaad أمانك بالهوى عظيمة وحكيم عزيز على يوم حاتمة النصير عزيز على يوم حاتمة النصير هدوسا عاتمة هتجري العلم لما برتين هدوسا عاتمة هتجري العلم لما برتين علم دخلها النساتي ودفتر لما هلين علم دخلها النساتي ودفتر لما هلين عزيز على يوم حاتمة النصير عزيز على يوم حاتمة النصير مواك بلا المفتي غيرها مهم مالك ونصبرها أمها نقي مالك ونصبرها أمها نقي مالي وأمها سنتها ورنا غامني مالي وأمها سنتها ورنا غامني كلي لا بابا هذا غدير جيدا تلي وعاتمة حتى مطار الأبصر oo loo yaqaano cudurka macaanka ama sokorowga cudurkan waxaa u dhimatay sida ay xog aruurin ay samaysay hay-adda WHO ee hay-adda caafimaadka adduunka 1.6 milyan oo qof kuwaas oo ah dadka uu sida tooska ah u dilay cudurka macaanka ama sokorowgu waa cudur leh sababo kala duwan dadka qabaahina ay dhuugooda ku badan tahay sokorta waxaa loo yaqaanaa markaas hyperglycemia cudurkan wuxuu ku imaan karaa in jirku uusan helin insulin ku filan iyo in jirku uusan ka jawaabin insulintii la soo diray insulinta waxaa sameeya xamiitiga oo ah xubin ka mid ah xubin ku taala caloosha gadaasheeda xamiitiga waxaa ku jiro unugyo loo yaqaano islets kuwaas oo sameeya insulinta kadibna ku dara dhiigga si ay u yareyso sokorta badan ee ku jirta dhiigga waqti dheer haddii uu sii jiro cudurkan waxa uu keeni karaa caqabado ay ka mid yihiin cudurrada wadnaha sida wadnaha oo istaaga keliyaha oo shaqada gaba indho la-aan dhibaatooyin dhanka ilkaha ah iyo farxad darro iyo dhibaatooyin dhanka uurka ah haddii maamada xaamilada ah uu ku dhaco cudurka sokorowga cudurka sokorowgu wuxuu leeyahay nuucyo badan oo u soo waajibo dadka nuuca koowaad waxaa sababa in jirka uusan helin insulin ku filan taas oo ka timid burbur ku yimid unugyadii soo saari lahaa insulinta waxa uuna inta badan ku dhacaa caruurta iyo dadka da-da yar
sababaha ugu badan ee uu ugu dhaco carruurta iyo dadka da'da yar waxay tahay kuwo dhaxal ah oo ka yimid waalidkiis oo qabay cudurkan iyo kuwa sababo la xiriira deegaanka sida cunnada uu qofku cunayo ama burbur ku yimaado unugyadii soo saari lahaa insuliinta. waxaan la dardaaran kooban aan siinayaa ardayda fiildiga caafimaadka ku soo biiray rabaanna inay bulshada u adeegaan. runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan haysano qof maanta qof kale hadduu cirbad u baahdo duri kara samata bixin kara wax u qaban kara. taariikhda waxaa ku jirto tuulooyinka ku yaala dalkeena ma jiraan ama dad caawiyo dadka. tuulooyin waxaa jira qofka oo u dhimanayo wax hal cirbad qof siiya oo u dhimanayo. marka ilaahay waxaan ugu xamdinayaa maanta in aan haysano dad maanta noo duri kara dadka. waxa ugu horeeya waxay tahay qofka bini aadanka inuu ka dhisnaado ama degmo ay ka dhisnaato loogu talagalay waxay tahay. dhagahayga ahayd way xanuunsantahoo wax dawaayay dhowaan dawinka madada cudurada disho la daciif ahayd daadeedii ka haray wax daweeye markaan baran daawadu doornimo sheegana duumada asagaa ka daran ilaahay wayaan qata cabdow wiilkayga oo ciyaarta gumaan ogiyo caawa dadkaaga oo caafimaad ka bar. hey waa igu jirta ani marka igu jirta kan la madaxan jiray dawooyin baa bartaa haddaan boqol ku koray ilaahay aan ka dhex noqotay ayay meeda barta koo socda ilaahay aan kayla koo socda wallahi ilaahay aan heli doonta ayay meeda iska daa allah waa yimaadeen iska xanuuna waxaan rabaa dictor inaad gabadhaan ila daaweysid. bariis soo halkaa bariis qof xanuunsan laga istaajiye xaggaa laga hayaa sheeg dictor gebigee waan xanuunsanahay habeenkii ma seexdo madaxa waliilo meel kastaan ka jiranahay dictor wax daawo ha seexdo ha seexdo madax ma ku xanuunaa idin sheegdo hay caloosha ma laga qabta habeenkii markaa seexato marka waaya alla yaqaana waxaas waxaa 9 sano mareegii habeenkii si bacad ma seexataa maya hurdama welado أنا سأحاول ولا يكبر. وعشان كده يدو. سكتة ما اللي أبغى أقول له عليه. أقول كم هكذا. سوسة تاب قالوا يساعد. أنا بقى يساعد عليك. وحاول يقعنا وحن أنا بسوا أكيد إنه هذا كده بنوت عنه. أرتا إذا جيسو jiibkii la-aantii iyo madaxanuunkii iyo caloosha wareegaya waxaasoo dhan u jeeda waa la yaqaanaa waa cudurro la yaqaano weeye dawooyinkan loo cuna horta klinigaas waad cunaysaa kana waad darsanaysaa waxaad u laqaysaa konton أعوذ بالله من الشيطان هذا دكتور مياد مياد دكتور هاي دكتور وانا دكتور قف هذا حنوصل وصقي حنوصل وكم من دعوة وسيل حدا فارقته ما اسكت إلى دواء بنتي دكتور وحي كلمة على مسؤول مياد كتاب أنا مسؤول كه دواء كاس كنت أقول اسكت هذا بس ما يا جواب أنا سعدتي إيه أقول كنت أقول لك ما كلمت يا ما تكلمت تبلاتك سجلت أنا أسوي ساين فودرين والله بلاي أقول لك أيه قلت الله إسكت عرفت حسبنا يغنى كنت أنا هدايت لا يكون مرة بس والله والله ما كان ما هيا بدي
السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. محمد ملايين ساينا قوة. أنت ما كلمني على الثاني. كل ساعة ماشي دكتور مية أنا عاملين قبل يجي واحد وصل. شوف كي يوم مرسل بنك يوحي يلا يتوان بسيط قبل يجي عير كذا آيات سياسي يصير. ما أنا كلام. ما حد بدور الشيء دكتور مية بحث دكتور بين بنية وحاولنا نتقارن ورمية محاول تعيش الدكتور مية محاكا. ورما أنا ما أنت تقولي مغالط. قولي مغالط ورناتنا. كنت نسكت على اللحن باغدي وتدواتن باغدي وتغيري دوار مير بمركي جاء وقتن دوسا. ليش لا أنت مير مركي هذا مير كلا أعطي صار ولا صار. قط بهذا الاسم. أنا أنت على مسيح دوار عجبة دوسوسة. والله ليش إسلام تبي غير بدنا. لا بدنا نودي هذا. ساعة ولا ساعة الله شاهد. أيوة مثل هذا. ما عمري وارو بنتارو دكين ودكين. طب يا هذا لا ولا غير ده. لا ده دكتور عكتو ما هو حلو غيره ما لا تفهم فيا لا تخلي دكتور مين ما سمعت عايز وانا عبارة انت ولا لا لا السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام سلوى. ماشي سو حرون عافيماد معهن. حرون عافيماد وماشي مقشين دكتور داعب وفريق سلوى. فما سنت دكتور واندينا. يا دكتور جبر بايدا حنون سنيسا. مال واندينا. يا دكتور جبر بايدا حنون سنيسا. مال مقار أيام دكتور جوي. داوين أيوب سوقري. waxaa wixii aan lacag haysana doctor waa uu naga qaatay daawooyinka wixii konton iyo lixdan iyo toddobaatan loo siiyo gabadhii bukaan jiif ayay noqotay waxaan rabaa inaad wax ka qabatid oo baaratiin fiican kula tacaashid ay fariis magaceeda bushra maxamed waa leeyahay bushra maxamed xaafadda dambe سنة هي كودا. دكتور gabadha siyaabo badan ayay xanuunsan tahay hurdo way ka tagtay madaxu waa xanuunaya miir ma lahan ayada dhan way iska qarwaysaa siyaabo badan baa loo hayaa duktaar gabadhan qandho joogta baa haysa warqadii hore daawada duktaar warqadan ayuu noo qoray duktaarku kaniiniyaal badan oo uu nasiiyo kontakana واضح كوحد كدلا كورنا في ساعتها ما يغزي ترى داوي بربوسيو داوي ما كان سمع شمحان سكرتي وحبيس كلام كروحان كلنا هين عند الداوي فوق قرية إن شاء الله وتبع مع الإنسان كنين يوم على الإنسان وقتي كوقتي على استعماله صباحيو هذين عطلة كذي هي بنا تعلم إنسان تعلم في عمان إنسان مركز صورنا ميرو في صورنا كثير دولة القان أنا حسنا إنسان بدأ هي دي صورة على ما سنتا هي دولة هيرو سمة تطوع لما دولة هي أو قبضي ما اختياره أي عندك كبد بالي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله دكتور aad baad u mahadsantahay gabadhaydii xanuunihii haayay taadaankii ay la joogtay bukaankii way ka kacday dawadaasi saa shifo ugu horeysay alxamdulilah annagu waxa waaye dadkan waxu soo baranay dalkan waxu baranay alxamdulilah inay caafimaadnay waalideynay daawo tayar aan u baray mar walbana waxaan u shaqaynaa waa bulshada dadkeena keenina mar walba caafimaadka waa in loola xiriiro meelaha oo loogu talagalay sida isbitaalka dhakhaatiirta laakiin maaha inaad meel walbo qofka nafta inuu ka taxadara loo baahan yahay maadaama caafimaadka uu yahay muhiimada koowaad marka waxaan kula talinayaa inaad mar walba dhakhaatiirta isbitaalada oo la yaqaano iyo dhakhaatiirta in waxbarteen aad og tahay waa in lala xiriiro دكتور وكما قلنا ما دام داوود يا أبو عثمان أيوة ما سنتين دكتور أنا هو أقوانتي دميو وعبرشة كنت ذالي ودكي بهيو ماشي وعوتمير ما أتبع غير كوكي هذا هو دكتور هذه ما سنتين ريبو إيه ها
waan fiicanahay ka waran gabadhi ayaa jiray ma caafimaad gabadhi way fiican tahay alxamdulilah doctor la yiraahdo doctor daaca oo ka soo bartay xarunta sahan ayaa u geeyay alxamdulilah doctorku waa midkaan doctor daaca baa la yiraahdo wuxuu wax ka soo bartay dugsiga sahan waran doctor xarun caafimaad bulshada loo adeego mar walba si dawaadama dufcadii ka horreeyay degmaday u shaqeeyaan isbitaalkeesa badan uga shaqeeyaan waxaan kula talinayaa dhammaan dadka bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan da'yarta inay caafimaadka bartaan adiga in dhalinyarada barta caafimaadkii baan barta maya doctor wiil baa u rabaa wiil yaroo adeerkiisaan ahaa baan u rabaa caafimaadka inuu barto wiilka adiga dhammaan waa inay macnaha caafimaadka lagu dadaalo oo la barto oo weliba gaar ahaan waxaa kugula talinayaa akademiyadda sahan wanyar inta u dul qaadato dibloomadaada ka qaado kadibna bulshadaada u adeeg waataa doctor wiilka adeegsana war cabdo iwaraade هي كور عدوي بدي كور عدي والله فعلا هي أنا أروح على هنا عاصمات كبرت عاصمات أنا برت مرسى عاصمات حالي هذا عاصمات اللي هو مثل عاصمات غفتة بسعته مثل بسعته ها مثل بسعته عبد المعذر باباي عبد حضر معي وفعلا هي عاهم بيني يا سكول بيني يا سهم بيني يا سهم runtii waa aanu cudur daaraya madax badan oo nagala soo qaybgal weysay oo cudur daartay wax yar waxaan rabaa inaan ka taabto programkan IMSA training program la yiraahdo is wada kaashi ah ay uga gacan geysteen labada xarumood Imam Malik School oo ah iskuulka Imam Malik uga caansan degmada Cadaada gaar ahaan aan u hambalyeeyo ardayga kaalinta toddobaad ka galay Soomaaliya oo dhan oo hambalyeeynaya runtii iskuul wax fiican soo qabtay annagana kuwa ka qalin jabinay halkan oo xarunta wax ku soo bartay ayagana sidoo kale waa u mahadcelinayaa waan rajeynayaa insha Allah ayagana inay kaalmahaas oo kale ka galaan Soomaaliya oo dhan iyo akademiyadda caafimaadka iyo barashada xirfadaha sahan oo ay ayadana sii kaabayso jaamacadda Golden University oo ku taala magaalada Muqdisho ay xiriir leeyihiin dhammaan xarumahaas waxbarasho iyo jaamacadeeda aan sheegay barnaamijkan waxay ku leeyihiin gacan weyn ay ka geysteen annaguna dadkii insha Allah taala hawshaas socodsiinaya ayaan nahay waxaan rabaa marka barnaamijkan runtii wuxuu soo bilowday 2017 sanadkii hore aan soo bilownay haddana wuxuu ku dhow yahay 2 sano dufcaddii labaad ah hadda qalin jabinaysa dufcaddii hore waxay qalin jabiyeen sanadkii hore sanadkan 2018 dhammaadkiisii dufcadana waa sanadkan ay qalin jabinayaan runtii programkan ardayda ka soo baxday marka isu geyno celcelis waxay gaarayaan ku dhawaad 100 ba dhowr iyo 80 arday waaye marka la isu geeyo dufcaddii hore iyo dufcaddan waa inta programka soo gashay ee la diiwaan geliyey ee misna shahaado ka qaadatay ilaa hadda noogu jiro programka diiwaanka programka noogu jiro dufcaddii ka horreysay runtii meelo badan oo hadda magaalada Cadaada ka mid ah ay joogaan xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ka shaqeeyaan hadeertaan oo u soo qaadan karno isbitaalka Cadaado oo qaar badan ay joogaan hadda ka shaqeynayaan qaar badanna ay hadda tababar ku sameynayaan xilligan ay joogaan ku tababaranayaan annaga programkan dadkii gacanta ka geystay ama soo waday waxaan aaminsanahay in isbedel magaalada Cadaada laga dareemayo isbedelkaas oo ah in 2016 qofkii shaqo looga baahdo Cadaado xarun kamid ah inay ka soo apply gareey jireen meelo fogfog tusaale banaadir oo kale inay ka soo codsan jireen shaqada gobolada ugu dhow Gaalkacyo kale Dhuusamareeb oo kale Burco kale ka soo apply gareey jireen ama ay ka soo codsan jireen shaqada deedna ay halkan u imaajireen kana shaqeyn jireen taas anagoo ka duulinaa waxaan sameynay in degmadan dadka jooga ay ka faa'iideystaan shaqooyinka degmadan lagu qabto ama ka soo baxa
ka jawaabidii aan ka jawaabnay oo xilli ku soo aaday kolleera oo ka dilaaca magaalada Cadaado runtii dadkii aan soo saarnay ama aan soo tababarnay isbedel weyn meesha ka dhacay haddii loo baahdo talaal dad wax talaala waxay u baahan tahay inuu qofku tababaran yahay xataa ma jirin dad u tababaran runtii annaga inta noo yimid dadka aan soo saarteen oo baan campaign qaadayna tusaale suduwaha caafimaadka degmada Cadaado inta noo yimid uu yiraahdo soo qoro barnaamijka dadka ka soo baxay soo tababarka soo baxay campaign-kii jadeecada ay ka qayb qaateen runtii haddii ayna hadda shaqo wadin waa dad shaqeeyay oo barnaamijka intay ka soo baxaan shaqo bilaabay waa u mahadcelinayaa shaqada ay qabteen iyo dadaalka ay sameeyeen iyo isbedelka degmada Cadaado ay ka sameeyeen waxaana jeclahay mustaqbalka dhow insha Allah inaan sameeyno barnaamijkan oo madax banaan insha Allah dad badan ay ka soo baxaan oo ayna dhicin xataa heer jaamacadeed shahaado haddii loo baahdo inaan meel kale uusan arday ka soo codsanin oo Cadaado dhexdeeda laga helo qof awooddaas aqooneed leh kana faa'iideysta yacni fursadaas maxaa la dhahay shaqo ee Cadaado ka soo baxday waxaan rajeynaynaa gudoomiyaha inuu laga dhamaan ardada muxuu ahay dadka maxaa la dhahay danaynaya maxaa la dhahay sida xarumaha caafimaadka magaalada ku yaal oo kale inay ka soo codsadaan annaguna markaas ardada aan u tababarno weli ardadeena annaga kama harinin waa daba joognaa haddii ay ka soo baxeen iskuulkii ay ka yimaadeen kasoo shahaadadii ka soo qaateen waxaan u joognaa xarunta caafimaadka meesha annaga ku tababarayna xaggana waxaan kusoo tababarnay galaaskii oo waxaan usoo sameyn waxa la yidhaahdo classroom teaching haddana waxaan u joognaa xarunta caafimaadka waxaan sameynaa clinical teaching ardaygii noo yimaada isbitaalka yimaada baraadka u yimaado macallimiinta ugu horeyso oo gacan qabanayso waa insha Allah u ballan qaadaynaa agaasimaha isbitaalka wuu noo yimid xaflad intaysan bilaabanin wuu cudur daartay laakiin insha Allah tacaala isagoo fadhiya ay ka dhigan tahay waxaan u jooga Dr. Ibrahim Booskiisii oo matalaayo waxaan rabaa marka inaan dardaaran yar anoon waqtiga dheereynaynin gudoomiyuhu noo soo xiri doono oo jecel inaan soo koobo waxaan rabaa dardaaran yar inaan ardada aan soo tababarnay iyo intana dhageysanaysa inaan siiyo waxa la bartay waa caafimaadka aad baratay qof bini aadama waxa aad soo baratay laba mid waxa aad soo baratay haddii si qaldan aad u fahamtay waa dili kartaa qofka jiran haddaad si fiican uga soo faa'iidaysatana waa noolayn kartaa qofka jiran maxaa yeelay qofkii qof nooleeya muxuu la mid yahay hal qof qofkii nooleeya muxuu la mid yahay fakaannama axya naasa jamiican dadkoo dhan inaa nooleysay ay ka dhiganta haddaa marka si qaldan qofkii u manage garaysa ee aad dishid ummadoo dhan adoo dilaa la mid tahay haddaa si fiican u manage garaysidna waxay la mid tahay oo qofkii kuu noolaado ummadoo dhan adoo nooleeyay la mid tahay marka caafimaadka meeshuu joogo ogow waxaa ka imaan kara ajar tiro badan waxaa ka imaan kara dhibaato fara badan oo adiga hadhow dembi kugu kordhin karta maxaa laga rabaa sifada dadka caafimaadka yacni ka shaqeeya sifooyinka ay leeyihiin oo aan sheegi doono haddaa mid kamida yeelatid ama aad dhammaan yeelatid waa u shaqey kartaa bini aadamka haddaadan lahayn uma shaqey kartid kow maxaa laga rabaa shaqada markaa qabanaysid inaad u tahay daacad honest and loyalty daacadnimaa laga rabaa haddaadan daacad ahayn waxba ma qaban kartid qabashada meeshaa ka baxa daacad maxaa kasoo horjeeda opposite-ka daacad maxaa daacad darro soo maaha micnaheed maxay keenayaan in qofka dishid sidoo kale discipline and obedience qofku inuu leeyahay discipline haddaadan discipline lahayn waxba ma qaban kartid qofka ku ciyaare qofka waa ku ciyaaraysa discipline ma lihid qof xanuunsan aragtay haddaa ku qusishid ka war discipline ma lihid soo maha obedience inuu qofku yahay oo inuu qof wax qaadanayo haddii wax loo sheego inuu wax qaadanayo haddaad discipline leedahay wixii laguu sheegay aa qaadanaysid bini aadamka jiran oo u shaqayn kartaa sidoo kale qofku inuu yahay alertness intelligence and observation qofku waa inuu qof baraarugsan yahay oo soo jeeda wax markaa qabanaysid bini aadam u shaqaynaysid waa inaad baraarugsan tahay waa inaad soo jeedaa laakiin adoo telefoon ku hadlaaya ama meel kale ka mashquulsan
ama qof kale la hadlaaya no qof wax uma qaban kartid haddaa u qabatana oo lagu qabanaya sharciga caafimaadka ku qabanaya waa inaa alertnessna oo soo jeedid baraarugsan tahay intelligent observation inaad samayn kartid caqligaada adoo kaashanaya qofkaana waa inaad fiiri kartaa xawaashiis adoo caqligaada kaashanaya haddaad caqligaada kaashanna wax qalad badanaa samaynaysaa sidoo kale qofku inuu yahay technical competence inuu noqon karo technical competence maxaa waay karti xirfadeed waa inaad karti leedahay xirfadaada waa inaad karti leedahay haddaad isku kalsoonayn gabadh waa soo baratay cilmiga waa haysaa laakiin karti miliid waxba ma qaban kartid maxaa yeele qofkii waxa waaye waa ku qalqalaysaa kabacdin dhibaata u geysanaysaa waxaa kaaga filan inaad qof cirbad suraysay ee aad yacni kaa baxsatay cirbadii dhulka kaaga dhacda aad soo qaadid ee qofka aad ku durtid taasaa ugu filan dhibaato qofka aad ku qabanaysid marka meesha maxaa ka baxay inaad tahay technical competence inaad tahay meesha ka baxay sidoo kale resourceful waa inuu qofku yahay yacni qof understanding wax fahmaya waxaa laga yaabaa wax aada soo baran inay kugu yimaadaan wax aada soo baran hadday kugu yimaadaan maxaa samaynaysaa marka resourceful tusaalaa kuu soo qaadanaya yacni waa wax adoo shaqadii ku jiray kugu dhaceen ma fakeri mase buuggii oo waagii wax lagu soo bartay maan baaraynaa maxaan samaynaynaa isla markaas waxaa la rabaa waqcadaas ay dhacday inaad yacni go-aan ka qaadid tusaale gabaraa tahay waxaa u shaqaynaysay male patient ama nina u shaqaynaysay adoo u shaqaynayo roomkii dressing ku jira oo wuxuu ku yidhi waa kaa helay nabshkaasdaan rabaa aadaa u qurxoon tahay maxaa samaynay buug maa loo fiirina maxaa laga rabaa mase waxaa leedahay naga tag kabta ma u siibani anima waxaas leedahay masaasaa dhehe macna maxaa dhehe markaas isla markaas waa inaad go-aan ka qaadataa qofkaas haddaa qofkaas shaqada u haysa aad sii daysid dhibaataa ku dhacaysa sooma haddii aad sii wadana asna muxuu sii wadaa sheekadii maalay celigaad sooma soo marka adaa laga rabaa inaad u fikirtid si uu sheekada ku joojiyo adigana aa wax ugu qabato inaad samaysaa laga rabaa resourcefulness okay cortus and dignity yacni inaad tahay qof edeb leh edeb waa inaad leedahay sharaf waa inaad dadka dhexdiisa ku leedahay bahda caafimaadka waxaa lagu yaqaanaa haddii dadka bukaanka u yimaadaan qofka yaqaanana way soo dhawaan sooma ditoore kalkaaliye yacni waxbaa la dhahaa sooma maxaa keenaya bulshada dhexdeeda sharaf ku leeyahay waa qof edeb leh bulshada dhexdeedana ka tilmaaman karaamo iyo sharaf ku leh waxaa kaloo laga rabaa qofka calaamadaha kamid a sympathy inuu yahay qofka sympathy qof naxariis badan mers waa inaad naxariis leedahay haddaadan naxariis lahayn qof wax ma qaban kartaa waxa uma qaban karta haddaan naxariisanayn ya qofka maxaa laga yaabaa inaad tolerance tahay inaad maxaa la dhahay aad dulqaad leedahay waxaa laga yaabaa qofka bukaanka xanuunka haya daraadiis inuu candhuufo kugu tufo hadduu wejiga candhuufo kaaga tufo maxaa samaynaya ya maxaa leedahay wajasaa-u sayiatin sayiatun midla amia adna ma indhaha ka saare maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad dulqaadatid hadduu candhuufo kugu tufo waa maxadsan tahay shaqo fiicanaa qabatay laakiin ma kaaga haraya saas shaqadii aan ku waday waan kuusii wadaaya waa inaad leedahay sympathy naxariis inaad leedahay sidoo kale qofka waxaa laga rabaa tactic inuu leeyahay oo maxaa la dhahay farsamo leeyahay farsamo waa inaa yacni markaa wax qabanaysid waa inaad xirfadda waxaa gacanta ka qabanaysid waa inaad aqoon u leedahay haddaad aqoon u leedahay waa ku goosatay sidoo kale patience and sense of humor waxaa laga rabaa naxariista iyo dulqaadka waa waxa lagu yaqaan dadka caafimaadka humor inaad tahay yacni dadka u shaqaynaysa mararka qaarkood inaad isaga dhex jirtid maanta la isku caajisaysa maano waxaa laga rabaa qayb dhanaa ka shaqaynaysa dadaa kugu jiifa mararka qaarkood waxaa laga rabaa dadka inaad u shactiraysid inaad u sheekaysid inaad ka qoslaysiisid qofka bukaanka laakiin haddaa adiga maanta dhan waa jimco bus tahay dhex marmaraysid dadka maxaa dhagaxaan miya dhagax maan soo maa waa inaad u sheekaysaa waa inaad dadka dareen gelisaa si ku jeclaadaan oo sharaf dhexdooda uga yeelatid laakiin haddaa maalin walba xirxiran tahay uu jimco bus tahay ayagana waa isxiriraaya waxaan ku kala dareemaynaa hadda xarumo caafimaad la jooga soo maa shaqaalaha markay soo galayaan qofkii ku jiray oo ama xala ku jiray ama galabta ku jiray walla kaas qof ma ahayn qaarna maxaa la leeyahay qofka xala ku jiray aniga ii shaqeynaa qof kale ma ii shaqeynaa maxay ku dhacda muxuu sameeyey qofkaas lacag muu siiyey maya dabeecaddiisa oo ka gatay marka waa inaad dabeecaddaada gadataa adiga ku dhacdo oo dadka bukaanka ah waxaa kaloo lagaa rabaa inaad tahay qof generosity macnaha waa inaad deeqsi tahay haddaad deeqsi hayn bulsho muu shaqay kartid
qofka deeqsiga bulshada ya qofka hadduu wax u baahdo adigu ku dhaada waa inaad dabiri kartaa qofkii oo deeqsinimadu lacag la siiyo keliya ma aha yani xirfadaada oo ugu deeqdid ayaa waxay ka mid tahay inaad deeqsi tahay inta aan soo sheegay haddaa tahay qof bukaana uga shaqayn kartaa haddii aadan ahayn uma shaqayn kartid waxaan filayaa inaad ila fahamteen ood maskaxda ku qaadeen oo aad qaadan doontaan oo xirfadii laydin soo bara aad ku kaabi doontaan insha allahu tacaala waan rajaynayaa waxaan hadalkayga marka rabaa inaan kusoo afmeero anigoon doonaynin hadalka inaan badiyo maadaama meesha xoogaa yaro kulushahay bahda waxbarashada ee deegaankan waxaa la samayn jiray barnaamijyo caafimaad oo ah muddo 6 bilooda macallinkeennan ardadan maanta qalin jabinaysa wax soo baray barnaamij ka duwan ayuu la yimid oo qalin jabintiisii ama traininkiisii caafimaadka ku saabsanaa wuxuu ku beesgareeyay muddo 1 sano ah annaga wasaarad ahaan waxyaalaha aan doonayn inaan ka hadalna waxaa ka mid ahaa caafimaadku maadooyinka kale waa ka duwan yihiin qofku caafimaadka markii la baro oo shahaado la siiyo shahaadadaas macnaheedu waxa uu noqonayaa qofkan waxaa lagu aamini karaa qof bini'aadan naftiisa inuu badbaadiyo ama uu qof daaweeyo maadooyin kale marka waa ka duwan yihiin oo training 6 bilooda waa la siin karaa laakiin caafimaadku waa ka duwan yahay marka maadaama macallinku caafimaadkiisa uu ka dhigay muddo 1 sano ah oo ah barnaamij aan laga samayn jirin magaalada Cadaado ayadana si gaara ayaan macallinka barnaamijkaas uga mahad celinayaa waxaan leeyahay aad iyo aad ayadu mahadsanyahay macallin Bashiir Maxamed Faarax waqtigu waa iska gabaabsi waa la caajisaan u malaynayaa waxaan rabaa inaan 3 qodob ka hadlo laba waa qiso intii aan Cadaado joogay aan ku arkay oo Cadaado ka dhacday oo qusaysa caafimaadka waxaan rabaa inaan la wadaago maadaama aad tihiin dad khubraa 1 sano u tababaranaya caafimaadka waqti loo baahnaan wax soo bartay tan koobaad waxay tahay aniga waxaan goobjoog ahaa Cadaado iyadoo computer tag sawir la soo geliyay oo guri weyn oo Cadaado la kireystay oo dumarku u tagaan oo la saaro la yiraahdo adiga cudurkaas qabtaa waan la tusayaa sawir meesha ku jiro sababtaas waxa gaarsiiyeen waxay tahay waa inaysan dhaqaatiir lahayn xataa khubaro caafimaad oo aad wax u fahmaysan jir iyo maamul wax ka qabta mid oo dadkaas ciqaabo xataa fahmay taas oo baahi magaalada soo marta weey maanta Ilaahay naga baxshay waxaan u mahad celinayaa dhaqaatiirta iyo khubarada wax baratay macallimiinta Ustaad Bashiir iyo Dr. Ibrahim iyo dhaqaatiirta kala joogtay ka mid yihiin oo soo saaray jiil badan oo wax fahmay caafimaadka wax ka fahmay iyo iyagoo maaragtay dhaqaatiir oo deegaanka dib ugu soo laabto dadka baahidoodii ha qabteen mid labaad waxay tahay Dr. Maxamed idaacadu tagay codka gobolada dhexe waxa ogtiin in farmashiyaal iyo meherado badan ka furan magaalada dadka raacaad waxay u yaqaaneen qofkii meherad furta daawo inuu yahay dhakhtar laba dhakhtar ay joogto magaalada Cadaado waa aniga iyo gabar isbitaal albirri ka shaqeynaysa niman magaalada degan oo farmashiyaaleeya soo wacay dhaqaatiirtu adiga kuma xisaabsanay waxa la sheekhu Isaaruul uu la hadlay wuxuu yiri qofkii shahaadada baajka haysta dhakhtar loo yaqaan waxa oo dhigan sharcigu dhigayo waa ku qanacdiideen waxaan xusuustaa muddo bil ka badan amurankaas socod sababtoo dhibka keenay waxa keenay waxay tahay dadka raacada xataa u yaqaanay qofka hadduu farmashiyo furto inuu dhakhtar yahay wax daaweyn karo sharciguna saas ma xataa qofku inuu farmash dawada si gaar ah lagu taqasusay kuliyad gooniyo waay inuu dhakhtar yahay inuu laab ka yaqaano dhibaato ay sababta weey caafimaad darro marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallinka labada dufcadood soo saaray waxaan u maleynaa midii hore waa shaqaysay dadka lagu nacfiyay ka mid yihiin idinkana waxaa la inka rabaa inaad wax soo saar yeelataan wax ugu badan oo hadda Cadaado dhaqaatiir way jirtaa laakiin waxaa jira wacyigelin la'aan jirta sababta dadku waxay u baahan yihiin in isbitaalka iyo goobaha caafimaadka lagu soo xiro in cudurrada imaanaya laga wacyigeliyo